سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة والأخوات ربنا تبارك وتعالى قرآن كريم كأوحي نوغ الشاقي sanadkii xajatul wadaac nabigu banka carafa taagan yahay maalin jumca ay tahay casarka kadib ayaa waxaa rabbi ku soo dejiyay tabaaraka wa tacaala nabigeenna maanta ayaan diintiinni idiin dhammaystiray nicmadaydiina korkiinna ku dhammaystiray islaamnimadana aan raalli idinka noqday diin ahaan waan idiin dhammaystiray waxba kama dhimano waay nicmo taam ah iyo diin kaamila wey meel dhiman oo in la dhammaystiro u baahan ma leh meel jaban oo in la kaba u baahan ma jirto meel siyaado u baahani ma leh sida aan waxba looga dhimi karin baana waxna loogu siyaadin karin intii ilaahay soo dejiyey nebi maxamed intuu noolaa oo uu dhulka korkiisa joogay yaa rabbi dhammaystiray wax kastoon u baahanoo khalqigu u baahan yahayna waa lagu dhammaystiray waxay la mid tahay aayadda kale qur-aanka rabbigan yidhi kelimada rabbiga way dhammaystirantay ayada oo run ah oo cadaalad ah ayadoo run ah waa wixii war ee ku yimid ee khabar ah ama wax tegay ama wax soo socdo laga warramay waa run iyadoo cadaalad ah waa axkaamta iyo amarka iyo nahyiga iyaduna waa cadaalad labadaba waa dhammaystirmeenoo wax dhimanaana ma laha nabigeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayh abu darin alkhifaari saxaabiga la yidhaahdo baa wuxuu leeyahay nebi maxamed waa naga tegey buuri isagoo uusan jirin shimbir hawada garbihiisa ruxaya oo garbabyadiisa ruxaya uusan jirin ilaa cilmi inuu nooga sheegay mooye shimbiraha hawada duulaya wax kale iska dhaaf isagoo cilmigoodana siiyey ayuu nebi maxamed naga tegey buuri weliba wuxuu la yidhi buu yidhi nabigu sal alla alay wasalam ma jiro wax janno idiin dhowaynaya naarna idinka fogaynaya ilaa waa laydiin caddeeyey cid kale uma baahnin marka diintaa dhammayska tiranoo wakhtigaa dhammaystirantay wixii ka dambeeyoo ummadda diin looga dhigo waa bidcaduu nebigeennu ka digay salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa yeelay weel buuxa meel wax lagaga shuba ma leh rabbi baa buuxiyey oo dhammaystiray nebi maxamed oo nool salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadiisii ka dambeeyey iyo ummadda inteeda kale iyo ardadiisii kaalintoodu waxay ahayd inay fahmaan wixii ilaahay ka soo degay kadibna ay ku dhaqmaan oo dadka gaadhsiiyaan laakiin inay wax ku daraan ma ahayn waxna mayna ku darin sidaasay u fahansanaayeenoo mayna ku dhiiranin inay wax ku daraan bal arrintaa iyadaa waa ka dagaalameen cabdullahi ibn mascuud waxaa ka sugan radia allahu tacala canhu ardaah inuu yidhi ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum wixii soo degay raaca wax cusubna ha la imaanina waaba laydin kaafiyeyba waa laydinka kaafiyey inaad wax jeebka kala timaadaan ood ku soo dartaan taa waaba laydinka kaafiyey ee wixii la soo dejiyey raaca
diinteennu diin dhammaystiran waa sidaas daraaddeed baa imaamu maalik calayh raxmatullaahi imaamu daari ilhijra sheekhii imaamu shaafici a'immada sunnada rag igu waaweynaa ka mid ah ummadduna jalaaladiisa iyo cadamadiisa ay isku waafaqsan tahay ayaa wuxuu leeyahay ruuxii shay intuu dib kala yimaado oo isagu jeebkiisa ka keeno oo diinta ku soo dara oo wax wanaagsan u arka ruuxaasi wuxuu sheegtay inuu nebi maxamed khiyaamay fariintii alla u soo dhiibay maxaa yeelay buu yidhi allah wuxuu leeyahay diintaydii maantaan dhammaystiray hadday diintu dhammaystirnayd adna aad leedahay waxbaan ku darayaa xaggee dhibku ka jira ma dhammaystirnaanteedaad ka shakisan tahay oo waa gaalnimo haddaadan taa ka shakisnayn ma nebi maxamed baad ka shakisantaha tuhunsan tahay sidii loogu soo dhiibay inuusan u keeninoo wax ka dhimay ma halkaasay arrintu kaaga qalloocan tahay haddaad taad qabtana waa gaalnimo waa laba arrimoodboo kooda roon khadhaadh badan yahay haddaad diinta kamaalkeeda tuhuntana waa riddo haddaad nebi maxamed soo gaadhsiintiisa aad khayaano ku tuhuntana waa riddo labadaasi ama afka ka dheh ama dhaqankaagu ha ku tusee laabudda waay saas daraaddeed baa culimmadu waxay leeyihiin ninka bidca iyo waxaan diinta ku jirin ku soo daray wuxuu ka dhigan yahay nin ilaahay ka daba tegayoo kale oo leh wax ku dhaafay baan rabbiyow anna keenahayaa ha layga qaado istidraag cala allah jarii waay waa ruux aad u dhiiran diinteennu marka bifadli illaah saasay inoogu dhammaystirnayd wax dib ka yimidna ma jiro imaam maalik wuxuu yidhi maalinkaa waxaan diin ahayn maanta diin ma noqon karo nebi maxamed maalinkuu noolaa wixii ilaahay loogu dhowaan karayoo jiroo diin ahaa waxaa unbaa maantana diin noqon karee wax ka dambeeyey ummaddan diin uma noqon karo ilaahu muu ninka sheekha ugu caalimsan muslimiinta muu keeno ilaahumay culimo badan intay isu tagaan keenaanoo ummadda u keenaan war maalinkaa ma jiray miisaanku waa kaa maya hadeer meeshaad la aadaysaan idinkaa garanaya miisaankaasi waa miisaan loo baahan yahay ruuxa muslimka ah culimo ha ahaado caamo ha ahaado rag ha ahaado dumar ha ahaado inuu qalbigiisa ku sugnaado kadibna uu isweydiiyo wax kastoo lala yimaadaayey xaggay ku taallaa afii kitaab illaah am fii sunnati rasuuli illah saas daraaddeed baa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh aad uga digay waxyaalaha xilligaa ka dambeeya ummadda diin looga dhigi doono waxaa ka mid ah hadalkiisa uu mar walba ku furfuran jiray hadallada war wax kastoo dib laga keeni doono waa bidco bidc kastana waa baadi iskhilaaf fara badan baad arki doontaan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam aad la isu khilaafay maxaa lagu badbaadi karaa sunnadayda jidkayga laazima khulafadayda jidkooda laazima waxa dib laga keenaya ee diin la idinka dhigayana iska jira kulli waxaasi waa wada bidco bidc kastana waa baadi ninkii bidca qaaday balaaya qaaday sidaas daraaddeed buu nabiguna ka digay salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaasoo digniina inagoona layna siiyey baa balaayadii nebigu ka digahayey baa soo baxday oo intaasoo weji ku timid nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo saxaabadiisiiba weli iyagoo saxaabadii wax ka sii nool yihiin baa waxaa bilaabatay rag inay diinta ku soo daraan waxaan ka mid ahay ama niyad wanaag ha u geeyo ama qolo doonaysa inay diintaba dumisa ha noqoto oo zanaadiqa ah waxaa bilaabatay ahlulbidaci inay diinta wax ku soo daraan oo midba wax la yimaado iyo kanaa fiican nin yidhaahdo wax keenoo yidha maya kanaa ka sii fiican kanaa ilaahay loogu dhowaanaya waaba bilaabatay markaasay bilaabeen culimmadii sunnada saxaabadii wixii ka dambeeyeyba inay weerar bila hawaada inay ku qaadaan wax kastoo dib laga keeno oo ummadda ku baraarujinaan war iska jira kitaabna ma tusin sunnana ma tusin wakhtigaana ma jirin diin maaha iska jira sidaasaa diintu iyadoo saafiya inagu soo gaadhay alxamdu lilah kitaabkii ilaahay oo sidiisii abaa inoo yaalla sunnadii nebi maxamed oo sideedii abaa inoo taalloo la xifdiyey saxiixu lbukhaari saxiixu muslim sunanka macaajimta ajzaada masaaniidda sideedii iyadoo abay inoo taallaa walxamdu lilah ninkii maalin isku dayay inuu wax ku darana aleelahay waa lagu buuqo culimmadii baa ku qaylidoo warkiisii waa caddaaday oo wuxuu noqday dharaar bannaanka taala isaga unbaa la dhintay ama ka toobad keenay in yarna waa galaaftay mooye laakiin diintii waa xifdisantay
maalmahan marka waxaa jira caadina sanad walba bishan oo kale in ay dadku nooleeyaan bidcada loo yaqaan mawliidka bidcadaas oo waagii hore si yara roombayba ahaan jirtay hadda ka dar oo dibi dhal ah meeshay maanta marayso in heer la gaarsiiyo xataa in laga dhigo ciid weyn munaasabad weyn oo ciid ah oo dawladaha qaarkood xataa ay yaani ciid ahaan u aqbalaan oo holiday laga dhigo ilaa heerka maraysa loogu diyaar garoobo sanadkii markay soo socoto lacag aad u fara badan loo sii ururiyo qoliyo dadka ka shaqeysto jeebkooda wax ka urursaday ay munaasabada sanadka sugaan oo Allah yaa idin gaarsiiya waxay noqotay bidco maalinba maalinta ka dambaysa irid cusub sii furanaysa arintaasi ma jirin waqtigii quraanku dagayay lama aqoon wax la yiraahdo mawlid saxaabadii nabigu intay noolaayeen waqti bay nabiga ka dambeeyeen in badan oo ayaga kamida intay noolaayeen lama aqoon wax la yiraahdo mawlid ardadoodii oo taabiciina intay noolaayeen lama aqoon wax mawlid ah quruntii saddexda ahaa aimada waaweyn ay noolaayeen lama aqoon saas daraadeed atahadda hal kelimo oo ku saabsan mawlidka arwakaas hal laga soo guuriyo imaam Shaafici iyo imaam Maalik iyo imaam Ahmad iyo Abu Hanifa iyo Awzaa'i iyo Thawri iyo Ibn Uyayna arha laga soo guuriyo maxaa yeelay maba jirinba wax la yaqaanay ma ahayn goormay timid culimada inta qaar kamid oo u qiil raadiya iyo jamaahiirtooda oo diiday waxay isku waafaqsan yihiin culimadii mu'tabariinta ah baan ka hadlay ma nin soo ruuleeyay oo hawa wadama ah laakiin culimadii mu'tabariinta baan ka hadlay rag wax u raadiyay xataa waxay rumaysan yihiin inayna saddexdii qarni midna jirin waa la isku waafaqsan yihiin laakiin wixii ka dambeeyay ay timid qolada ugu roon waxay leeyihiin waxay timid qarnigii afraad qolo kaleetana waxay leeyihiin may qarnigii lixaad bay ku soo biirtay adduunkaba raadkeeda inaan dib u sii raaco mar raba yaa keenay waqtigu iima saabaxay oo xidid xun bay leedahay mawliidku marka la raad qaado yaa bilaabay xididkiisu ma fiicna niman zanaadiqa baa bilaabay oo faatimiyiin la dhihi jiro culimada islaamku isku waafaqsan inay gaalo ahaayeen oo ka talin jiray maghrib al-arabi iyo masar waqti ka talin jiray nimankaas bilaabay wax jiray oo hore ma aha mar hadduusan horeynin hal su'aal isweydiid ruuxa caamayga ah muxuu yahay ilaahay baan idin ku dhaariyay khayrka nabi maxamed ka qarsoomay sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisii ka qarsoomay taabiciintii ka qarsoomay saddexdii qarniye imaamiyadii waaweynaa ka qarsoonay ee ummadda u soo baxay qarnigii afraad khayrkaasi xagee ku duugnaa waa su'aal aad isweydiinayso sidaas daraadeed baa qodobkaasi markay mari waayeen nimanka u ololeeya mawliidka oo qodobkaasi ku adkaaday ayay intay ka wareegteen alla ka cabsi baan jirin oo alla lagama baqaye intay ka wareegteen baa waxa la bilaabay in la yiraahdo quraanku waa mawliidku ku yaala ajaa'ib war xagee kaga yaala markaas la bilaabay in aayadihii quraanka la luqunji baaro oo inta luqunta la soo qabto qaabkii la rabo loo geliyo oo meeshii la rabo loo daliishado war aayade qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu umad bu horfadhiya waa wadaad waa imaam waa sheekh kutubu akhriya aayadaas mawliidka ku tusibuul war yaa kaaga horeeyay uma baahni wax iiga horeeyay war yaa sax ku tafsiiray uma baahni ma ibn Abbas ما ابن عمر ما مجاهد ما سعيد بن جبير يا كفسري وما بباهني إلا يجا هري وركوا صول لحد مر واجي هر وعن قرنيا وحلقت دودي تشري مولود كوا بدعه هوا بدعه والقري تشري لكن وبدعه حسنه أبي كدودي تشري وبدعه لكن وبدعه وانا أكسن هل كاسي دودك قلي تشري لكن بهالشي تكتيو هذا وحيبا مريسا بدعه ما هي قرآن كاب الشيخ قرآن كي مركا آياتيس إن لغو عياره وعامد لغو وريريو وتفسير أين لهين لصاره
waxaaba ka cajab badanba masaajidka la yidhaahdo masaajidka sawsi maalin dhaweyd nin baa ka taagnaa wuxuu leeyahay ummad baa dhegaysanaysa oo u qoslaysa ninka isaga culimani buu sheeganaya guluwiga iyo xadgudubku meeshuu gaadhay wuxuu leeyahay nebi maxamed mawliidkiisa ilaahay baaba ixtifaalayba iska dhaaf nebi lagama hadlayo rasuul iyo idinka waxaad ka hadlaysaan culimo iyo 3 qarniye hadda waxay maraysaa war ilaahay baaba ixtifaalka sameeyey kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquluuna illa kadiba alla dhiirana oo geesisana oo indha adaga oo alla ka cabsi yara war waxaad ku dhiiranaysaa waa rabbiga oo waxaad ku been abuuranaysaa waa rabbiga oo waxaad taxriifinaysaa waa qur'aankii aaway alla ka cabsigii iyo aakhiriya alla la kulmaysaa ma jiro rag iska celi iyo rabbi ka cabso meel ma wada galaan ninkaasi dagaal buu ku jira rag iska celintiiba u cad laakiin rabbi ka cabsi meeshaba uguma jirto war xagee baa rabbi ixtifaal ku sameeyay mawliidka wuxuu yidhi buu yidhi rabbi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلهي ملائكتي سا نبيك كصلينا يسير مسلمين تي ونبيك كصليا وكان موليدك أوداتك كردك إن إلهي احتفال كسميب عاميك مسلم كعادك مرك الله شيء قول لي إلهي بأن نبيك كصليا أذيك نصلي بالله فري إيا موليد ويأكل الدوانته وذات كاس لكن وحا هرفر ليه قلوا عقوشودي مسكحدودا ku ciyaari karo fastakhaffa qawmuhu faata'uuhu innahum kanu qawman fasiqin aqligaagu mar haduu aqli yariyah mid aan ku dhaamin ba adiga dhanba isaga ka ciyaari oo aayada intuu soo dalishado axaadiiskeena ku wareerin oo intuu abur kiciyo isaga ka dhigahayay nin balaayo wax keenay markaas uu ku duufsanay halkaas ay maanta maraysaayo rabbiba in la yiraahdo asagaaba ixtifaalay bay maanta la maraysaa ragii bahasha taageeri jiray wax ka daranna waa laga sugayaa tafsiirta quraanka ninkaas nimanka saa ugu ciyaaraya waxaad iska rab dhigtaan billahi calaykum Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu arda ayad quraanka kamida ayuu damcay inuu fasiro kadibna waa ku dhiiran waa ka istaagay markaas wuxuu yiri dhulka ihaynaya keeway samada i hadhaynasate oo korkayga joogaysa waatee haddaan ilaahay hadalkiisa ra'yigayga ku fasiro xageen ku noolaan ma dhulkana ii dulqaadan mise samada ii dulqaadan markaan ilaahay kitaabkiisa intaan galo ra'yigayga ku fasiro Abu Bakar ummadda ninkii ugu cilmi badnaa way tafsiirka ugu yaqaanay fiqiga ugu yaqaanay xadiiska ugu yaqaanay saaxiibkii nabigeena way salawaatu rabbi wasallam fi hayati laakiin meesha farqiga jira waxa way jaahil dhiirano indha adag iyo caalim alla ka baqayay labada miisaal bay kala leeyihiin mawliidku bidcabaha ahaadee balaayo kalena waa wataa ilaan bidcanimadeeda ku eg laakiin bidcanimadiisa balaayo kaluu la dheeriyo wax kaluu wataa waxyaalo wata waxa kamid oo ugu daran waxyaalaha ay qaadqaadahayaan ay akhrinayaan intooda badan carabiga ma fahmaan laakiin haddaad adigoo carabiga fahmaya u fiirsato waxa la qaadqaadayo waa gaalnimo ilaahay kaalmo la weydiistaa la isku ogaa nabigu kaalmo la weydiisanayo isagoo lagu tawasulayo asagoo la tala saaranayo asagoo la baryayo waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wariyaa iska laha ilaahay baa iska leh asagoo oo quluwi lagu sameeyo leeyahay nabi maxamed quraanku wuxuu sheegay basharka dhooba laga abuuray laakiin waxay leeyihiin nuur baa laga abuuray isaga war malaa'ikta nuur laga abuuray waxaanay akhrinayaan buu ku yaalaa asagoo ay leeyihiin nabiyada oo dhan baa u tagay nabi maxamed ku tawasulay war xagay ku taalaa laysma weydiinayo waxaan la akhrinayo shirkiyaad iyo gaalnimo ka buuxda laakiin caamada dadka iyo in badan iyaga kamid ma fahmayaan balaayooyinka uu mawliidku xambaarsan yahay kuwa ugu daran bay kamid waxa kamid ah ixtifaalkani waxa lagaga daynayaa nasaarada maxaa yeelay nabi dhalashadii cid isu imaad samaysay oo weynaysay waa nasaaro waa kristanka christmaska waxay yiraahdaan halkaasa lagaga dayday oo laga raacay nabigeennuna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ummadihii idinka horeeyay jidadkooda raaci doontaan oo dabagalid wad ku dayan doontaan hatta taako dhudhun
حتى هدي باشا الضبطة يقود كذا قلان واد كذا بقليسا ما يهودي النصارى رسول الله أو يا كلاب النبي صلى الله عليه وسلم inaynu ku dayanayno wax ka qaadanayno taqliidinayno qaar inaga naga mid wax ka soo urursanaya nabiga inoo sheegay salawaatu rabbi wa salaam alayhi marka waxa ku sugan tashabbuh bin nasara waman tashabbaha biqawmin fahuwa minhum waxyaalaha uu xambaarsan yahay waxa kamid ah aafaadka ah xoolihii dadka bilaash iyo xaq darro lagu cunayo xoolaha la ururin sanadka waa munaasabad la sugaba markaas waxa ka qayb qaadanaya u fiirsada حتى دولة قالة هي شركة قالة يا حولها بحنية انت سو مليون أو دولار ها سفاريكوم كمبنية دول وطنك ويبقى كنت لقالة يان سنة كموليد كصوص عد حولها وسيد لقيا ور سفاريكومي قورما الدين تاقيرتي بالسؤال سويدي أجائب توحيد الدين لفافين يا سفاريكوم قورما تاقيرتو قرب النقطي oo dawladuhu gaalooda goormay garab u noqdeen dawladaha waxay ka dhigan munaasabad weyn oo xaflad oo ciid oo kala waana dawladaha ugu daran diinta la dagaalankeeda shariicadu inay soo noqoto oo diinta ilaahay dalka lagu xukumo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala adoomadiisa adoomo looga dhigo dawladaha ugu dagaal badan ama islaam ha shoogteen ama gaalaha ahaadeen ayaa mawliidka buunbuuniya oo xoolaha ku bixiya su'aal baad is weydiin kartaa laf timir laf baa ku jirtee maxaad shariicadiina ula dagaalamaysan mawliidna xoolo ugu bixinaysan laana waxay og yihiin mawliidku inuu dadka diinta ka fogeeyo mooyee diin u soo dhaweyn maayo qanaaca xaqiiqi ah xoolahan la ururinayo marka waa xoolo baatil ah cunidooduna waa xaaraan waxa kaaga daran inta haday ku ekaan lahayd way baroonaan lahayde ayeydeen maxaad ku ogeyd buu indhalaan dad cunimay ku darsatay balaayay ku darsatay waxay ku darsatay magac xoolahan la ururinayo waxa lagu ururinaya nabi maxamed magaciisa salawaatu rabbi wa salaam alayhi waxa lagu ururinaya nabi maxamed mawliidkiisi ha rasuulka xoolihiisi keena habraha farqooda laga soo furaya war nabi maxamed habraha farqooda wax kama furan jirin sadaqadana isagoo nool ma cuni jirin zakadana isagii eelkiisa xaraam bay ka ahayd maxay tahay edab darrada inta leeg inaad nabiga magaciisa xaq darro u isticmaashaan oo baatil u isticmaashaan ها النبي قال لك عليه وانا الله حمينيا والنبي هذا تعشين راعه انت سو منكرات يا افاد وقت كان سامحينين با موليد كجرا موليد انت سو افاد يا مخالفات شرعيه كجرا لكن مدبان دين حقيقي نينكا meesha iyada ka shaqo bartay oo umada culimo ugu ahaa oo ku shaqaysan jiray oo wax ku heli jiray oo barnaamijkaasi muddo soo wadi jiray rajadiisu ma badna inuu ka soo noqdo bal waa kaasiiba fananayaba ilaahay baaba mawliidayda ku hayaba lagama rajo qabo nabigeennana wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ilaahay tawbada waa ka xidhay nin bidcawata bimaana ilaahay tawbada waafajin maayo waxaan loo waafajinayna wixii baaba de la qumanba oo cibaadu u arkaa oo ilaahay inuu loogu dhawaanayo u arkaa ma soo noqonayo marka kaasi ma soo noqonayo bal waa ka sii daraya maalinba balaayu sii fananaya war bidcada jooji marka leeyahay waxaan ka daa xuleeyah nimankaas wahabiyada ee mawliidka ka horjeeda waa garacyo saajka sawsiibu kala maalin dhow umadu dhageysanaysa malaayiin muwaxidiinta kamida buu wuxuu leeyahay waa garacyo oo zinay ku dhasheen war maxaad u tiri mawliidkii bay diideen mawliidkii bay diideen meeshay marayso way sii socotaa waxa xaqiiqo ah dadka rabbi yiri tabaaraka wa tacaala waxa jira dad markii la yiraahdo war ilaahay ka baq oo waxan iska daa ilaahay ka baq baaba cudur ku noqon oo markaasuu ka sii dari rabbi wuxuu yiri kaasi ha ka sii daree xasbuhu jahannama ku filan habboodboodo laakiin waxa ballan noo ah geerida iyo rabbi hortiisoo la tago ayaa ballan noo ah bal markaa ilaahay baa ixtifaalay iyo quraanka sheegay meeshii la geyn lahaa wadaadow aad geyn lahayd maanta ku irtisaaqday waxoogaana ku cuntay dadna ku duufsatay koofiyadna ku duubatay oo wadaad iyo culimo iska dhigtay laakiin rabbiga hortiisa markaa tagto meeshaad geyn lahayd baa loo baahan yahay hadday intaasi kugu jirto haddii kale Soomaa فحسبه جهنم ولبئس المهاد
caamada muslimiinta waxaan dhihi lahaa yaan laydin duufsanin diin idinku filan waad haysataan cibaadaadkii qur-aanku jideeyey oo sunnadu jidayso oo iska cad baydaan kala gaadhi karayn iyaydaan la wada imaan karayn wax muran iyo doodiba ku jirta maxaad diinkaaga dhigay maxaad wakhtigaaga ugu bixin maxaad xoolahaaga ugu bixin tii aan murankuba ku jirin baadan wada keeni karaynin oo aadan la wada imaan karayn sallu wasallimu ala khatami alanbiya'i wal mursaliin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك النظر إلى وجهك الكريم ونسألك الموت على السنة والحياة على السنة والبعث على السنة يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك